jooji isku dayga inaad noqoto qof walba ma isweydiisa weliga sababta dadka qaar ay nolosha si fudud ugu guuleystaan halka adiga dareemayso inaad meel cidla taagan tahay sirta ugu weyn maahan inay ka aqli badan yihiin ama ka nasiib fiican yihiin waa inay ogaadeen xirfadda ku dhex qarsoon ee buku manxistay. Assalaamu calaykum daawadayaal, magacaygu waa Yuusuf Roman. ku soo dhawaada mawduucina maanta. hadduu rabbi raalli ka noqdo muuqaalkan waxaan kugu tusi doonaa sida aad u soo saari lahayd mihnadaada gaarka ee kugu dhex qarsoon. inta badan waxaan waqti badan ku luminaa inaan isku dayno inaan barano xirfado dad kale ay ku fiican yihiin inagoo isha ka ilaalinayna tayadeena dhabta ah ee nagu dhex jirta. ogaanshaha waxaad ku fiican tahay waa furaha koowaad ee guushaada. kayu ahaan waxaan isku dayi doonaa tallaabooyin ficil ah oo aad maanta qaadi karto si aad u soo saarto xirfadaada taasoon ee noloshaada wax ka bedeli doonta hadduu rabbi raalli ka noqdo. dib ugu noqo caruurnimadaada markii aad yareed ee lagu qasbaynin shaqo ama iskuul ama dusi waxay noqoto ba ahaatee maxaad samayn jirtay? ma waxaad jecleed inaad artist samayso wax sawirto? ma waxaad jecleed inaad dadka sheekooyin u sheegto? ma sawirada ayaad jecleed inaad daawato oo waxaa ahayd qof xiiseenayo arrimahaas? ma qalabka ayaad kala furi jirtay oo yacni waxyaabaha guriga yaal oo kale ku ciyaari jirtay oo aad markaas samayn jirtay? tayadaada dabiiciga ah inta badan waxay soo muuqataa waqtigaad ugu madax banaaneed noloshaada, waqtigaaga gaarka ah, maalintaada gaarka ah. marka aad meel fadhiisato ama meel wax gaar aad qabanaysid aysan jirin oo lagu qasbay oo lagu diray shaqo haday noqoto kale, iskuulka oo kale haday noqoto, ama ay noqotoba waxyaabaha dailyga laga rabo oo saalahan waalidka kugu xujeenayo ama waxyaabaha familka ay kugu xujeenayaan gaarka ah. marka laga soo tago waqtigaaga gaarka ah ee iyo adiga yacni noloshaada bis ay tahay maxaa samayn jirtay? daas meeshaas waxaa ka helaysaa waxa gaarka ah xiiseynaysay. marka koowaad waxaa rabaa inaan fikir yar qalin qaadatid oo aad buug qaadatid, fikir yar aad maskaxdaada u dirtid. caruurnimadaada maxay ahayd wixii aad jecleyd? okay, qodobka kale ee muhiimka ah ee la rabo markaan raadinayno xirfadeena gaarka ah waxaa kaloo muhiim ah, qodob kaloo muhiim ah oo aan u baahnaa ah maxaa kuu fudud ee dadka kale ku adag. fadlan fiiro gaar u yeelo shaqooyinka aad qabato adigoon dareemeynin daal ama waqti lubis. ma tahay qof si fudud dadka ku qancin kara? ma tahay qof xisaabta iyo tirooyinka si dhaqsiya u fahma? waxaa adiga caadiga kula ah ee aad sida sahlan u qabato dad kale wuxuu u yahay xirfad ay la daala dhacayaan ama inta badan ay isweydiiyaan. taasaana kaa dhigaysa qof gaar ah, taasaa ku siinaysa mihnad gaar ah, taasaa ah waxa saxda ay kaa maqan ee aan raadinayno maanta inaan isla ogaano. dabcan qodobkeena koowaad oo ahaa maxaan xiiseynaa haddaad soo ogaatay. qodobkeena labaad ee ahaa maxaa kugu fudud ee dadka kale ku adag haddii aad soo ogaatay. waxa kale ee saddexaad oo muhiimka ah haddii aad rabtid in xirfadaada gaarka ah ogaatid ama waxa ku fiican tahay ama waxa kale ee kaa dhigi kara yuga aad tahay ama caashicuud aad tahay ama qofka aad tahay wax kaa dhigi kara, waa qodob muhiim ah. maxay dadku talo kaa weydiiyaan? maxay dadku talo kaa weydiiyaan? dadka kugu hareereysan, qoyskaaga, walaalahaaga, asxaabtaada, kuwa classmate-ka tihiin, kuwa aad isla ceshtaan inta badan oo kugu hareereysan maxay inta badan ku weydiiyaan? taas lafteeda waxaa laga yaabaa inay tahay wax gaarka ah ee kugu dhex jira kaa dhex arkaya markaas inay tahay xirfadaada gaarka ah oo adigana laga yaabo walaacaas inuusan kugu furnayn oo aadan war u hayninba. asxaabtaada goormay kusoo koolgareeyaan? ma markay wax usxaysid oo wax u samaynaysid? ma markay rabaan dhibaato inaad ka xalisid? ma marka waxaa la soo xasuustaa dalxiis bis la aadayo yuu soo socdo dhahaa? waxaa ku fiican tahay waxaa ka ogaan kartaa maxay dadku qodobkan waxaa waaye maxay dadku talo kaa weydiiyaan? maxay dadku talo kaa weydiiyaan waxay u baahan tahay waxay ku siinaysaa dhibaatada aad dadka ka xalaysid. waxaa ku ogaan kartaa maxaa dadka adi ugu jirtaa booske kaalinta ugu jirtaa familka, booska ugu jirtaa asxaabta, booska ugu jirtaa qoyskaaga. tayadaada qarsoon aad ku ogaanaysaa. sidee ugu ogaanaysaa? isweydii, pack maskaxdaada dib u celi, maskaxdaada dib u celi, isweydii. dadka inta badan maxay u weydiiyaan markay ku soo wacaan, markay kula joogaan, markay kula sheekaysanayaan? intaas waxaa ka dhex helaysaa waxa saxda ah ee adiga kuu gaarkaaya markaas ay kaa dhex arkayaan. laga yaabo inaadan ku baraarugsanin, laga yaabo inaad wari wacaan waxaynin toona. markaad soo ogaatid waxyaabahana kuu soo sheegay oo idil, waxa ugu muhiimsan oo aan maanta kula talinaa waxay tahay qofna ma jiro oo guuleysta ama wax arrin gaara qabtay oo wax ku helay ama wax sameeyey ilaa waxaa jirtay bes hal arrin
halantaas waxaa waaye wuxuu ka baxay aagga raaxada. qof kasta oo arrin ku guuleystay qabashadeeda, shaqo ha noqoto, ganacsi ha noqoto, nolosha kale noocyadeeda kala duwan, waxyaabaha qof kasta oo ku guuleystay wuxuu sameeyey comfort zone-kiisu ka baxay aagga raaxada. waxaan kala jeedaa weligaa ma ogaan kartid inaad dabaasha ku fiican tahay haddii aadan banbixin oo badda aadan aadin ama swimming aadan tagin. sababtoo ah inaad dabaal garanaysid inaadan garanaynin waxa kaliya kala saari kara waa in baddaas la tago, la sameeyo swimming, dabaal la sameeyo, la dabaasho. kadib waxaa ogaanaysaa inaad ku fiican tahay, inaadan ku fiicnayn, meelaha improvementiga u baahan, meelaha hagaajinta yar kaaga baahan, waxaas dhan ku ogaanaysaa. haddii aadan weligaa biigelin ma ogaan kartid. marka tusaalehen waxaan usoo qaadanay badda waxaa waaye wax kale maaha, waa waxa wada fahmi karno. aagga raaxada ka bax. aagga raaxada waxaa soo ogaatay waxa ay dadka ka weydiiyaan ama ka xalisid problemka, ka xalisid noloshooda, ka xalisid ama waxyaabaha inta badan kugu yeertaan. taas markaa ogaatid baag caruurnimadaada dib kugu celiyay waxyaabaha noloshaada soo samayn jirtay inta badan marka aad free time ka tahay, marka aad fasax haysatid, markaysan dadna kugu hareereysanayn oo wax ku barashgareynaya oo bilaadan uusan jirin oo ay tahay kaliya adiga, oo ay tahay waxa aad samaysid oo lagu dara qodobkaas labaad. tan saddexaadna oo ah ku fudud ee dadka kale ku adag. inta badan tan waa tan ugu muhiimsan ee qofka inuu waxaan xirfad ku leeyahay inuu ku lahayn kala go'aamisa, ama inuu yahay waxaagii saxda ahaa ee kayu ahaan adig ku shaqayn lahaa inay tahay in kale waxa lagu kala ogaanaa waxaa waaye maxaa ku fudud ee dadka kale ku adag. qodobkaas kale asna waa ka soo hadalnay. qodobkii koowaad lagu daray qodobkan labaad oo ah maxaa ku fudud dadka kale ku adag. tan saddexaad maxay dadku ku warsadaan, maxaad ka xalisaa markay ku soo wacaan inta badan oo aan laga hadlayn waxyaabaha kale khaaska ah ay ku weydiinayaan. tusaale ahaan problem hebel markuu qabsado, technician markuu jiro admaa la soo wacdaa. markay jirto waxyaabo kale oo gaar ah ku warsadaan face to face ha noqoto ama kuwan markay ku soo wacaan ku weydiiyaan ha noqoto, wax inta badan ku weydiinayaan waxaas wuxuu ku siinaa xirfadaada gaarka ku qarsoonaada inaad war u haynin. saddexdaas qodob adigoo isku haysatid waxa ugu muhiimsan marka maxaa waaye in comfort zone-ka ka baxdid, xindaabka raaxada ka baxdid, waxaan aad tijaabisid. marka intaas qodob samaysid waxa kale muhiimka maxaa marka shaygan waa soo heshay. qodobadan kuu soo sheegay marka aad samaysid waxaa soo baxaysa wax aad ku fiican tahay, wax la dhihi karo kayu ahaan anaa lagu imaana aad dhihi kartid aad ku soo baxaya. markay ku soo baxaan maxaa u baahan tahay marka wixii 100% maaha, markas perfect ma aha. waxaa laga yaabaa improvements inay u baahan yihiin, waaba qasab inay u baahan yihiin hagaajin iyo in wixii kor loo qaado ay u baahan yihiin dayactir inay u baahan yihiin. maxaa samaynaysaa baro shaygaas adiga aa aragtay inaad ku fiican tahay, asaga laftiisa qabo baro. markaa wax baranaysid asaga baro, markaad wax aqrinaysid asaga aqri, markaad aadaysid shirar iyo markaa aadaysid eventska fiiri ciwaankaas ma laga hadlaa aad. haddii ciwaankaas oo laga hadlaa meesha aad joogto, haddii online looga hadlaayo ama aad haddii oo yani event oo local u dhacayo u yahay aad isku day waxaas geerka laga hadlaya ciwaankaas adiga ahaan aad isku arkaysa inaad ku fiican tahay ka qaybgal. markas idea cusub ku siinaysaa, markas kalsooni ku siinaysaa, markas waxay ku siinaysaa maxaa la dhahaye wax baa ka faa'iideysaa. sidin financial dad ka faa'iideynin maxaa u aada odayaal sheekeysanaya maxaan ka aada maxaa ka faa'iida. markas tamay saasa dhiin saasa u fikirin, positive minded noqo, yani qof dhanka wanaagsan wax ka eegaya noqo. hal su'aal isweydii weligaa haddii anigoo iska jifta ay fursad igu dhaafayso maxay diiday inaan kaco oo aan ka qayb galo meesha aan rabo si aan wax fursad u soo helo nooc doonta noqoto. marka taas markasta muhiim ah inaad ka fikirtid. ugu dambeyntii xirfadaada kugu qarsoon maahan wax hal habeen lagu wada ogaado, waa safar u baahan in la tijaabiyo oo la isdhegaysto, has barbardhigin dadka kale. qof kasta wuxuu leeyahay hibadiisa gaarka ah, soo hel awoodaada, kobci oo dunida la wadaag. waxaan rajeynaa rabbi idinkii inuu ilaahay kugu guuleeyo adigana xirfadaas iyo muhiimadaas aan leedahay. muuqaalkeena halkaas ayuu noo ogyahay. waxaan rajaynayaa inaad waxaan ka fahanteen kana faa'iidi doontaan. fadlan qaybta commentiska igu reeb maxay tahay hal shay oo aad aaminsan tahay inaad si sahlan oo fiican u qaban karto. nala jir oo nala joog, nooga caawi, subscribe, like, share. mahadsanid. tani saarageena dambe waxaan idinku ogahay oo idinkaga tagayaa nabad iyo horumar.